السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan ajmal degan asxaabta ku xiran youtube channelkayga dhinaca walba social media. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada mar kaleeto muuqaal cusub ee aad u qurux badan. muuqaalkan insha Allah waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa warbixin amaba macluumaad guud ee ku saabsan dhismaha guryaha iyo weliba qaababka loo qalabeeyo alaabaha la dhigo iyo dadka si u kala duwan yihiin. baan jeclahay inaan ku aragtaan wax walba ka hor waxaan idinka codsanayaa dhammaan qof walba oo hadda channelka soo galo oo number 1 markii ugu horeysay soo boqday tahay inuu subscribe noo saaro kambalelka furto si muuqaal kasta uu soo gaaro. inta hore nala joogtay iyo dhammaan qof walba hadda muuqaalka fiirinayana waxaa naga codsiya inuu sii share gareeyo si asxaab fara badan uu gaaro. alxamdulillah magaalada Muqdisho maalinta ka dambeyso way socotaa way tilaabsanaysaa. socodka magaalada dhan walba ama jiha walba dhanka kale way ka duwan tahay. magaalada eeriyooyinka haday noqon lahayd dhulka iyo haday noqon lahayd guryaha dhismaha wax walba meesha qofka dhulka ugu yaalo ama uu dhulka ka rabo way ka duwan tahay meelaha kaleeto. gurigan horta waan idin tusinayaa waan idin sharaxayaa. gurigan cabirkiisu waa 20 lagu dhuftay 15 waa guri dhaxdhis ah. cabirka qolalka aad wada arki kartaan kushiinka sidoo kale aad arki kartaan qaabka loo dhisay. injineerada dhisay guryahan way kala duwan yihiin. gurigan wax ceeb ama cilada ma lahan. waa maasha Allah tabarakallah si aad u qurux badan loo diyaariyay. qofku haduu naqshadan dalbado uu heli kara. haduu naqshado kale ka duwan asaga uu watay jiraana waa uu dalban karaa oo wuxuu oran karaa aniga naqshadana wata ayada raba in wax la igu qalabeeyo ama wax la igu farsameeyo. sida ay u kala duwan yihiin alaabaha tayadooda bay lacagahan u kala duwan yihiin oo hadda filooyinka dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaan rabaa in filo la ii dhiso 15 kun la igu dhisaya. 15 kun horta xaqiiqatan filo lagu ma dhiso. laakiin qofka haduu dhaho bulkeeti oo hal isku kor saaro waa macquul wax soo dhaweyn kara in loo sameeyo. muhiimadda ugu weyn laakiin waxay tahay marka guri dhisanayso qofku inuusan ka fakarinin laxdadaas waxa uu hayee uu is yiraahdo maanta hadaadan awoodi karinin lacagtan hadda hayso dhul gasho. waayo lacagta hadaadan dhul gelinin oo gacanta ay ku jirto ama akoon ay ku jirto kuma taqaano. dan yar baa ku qabsanayso waad la baxaysaa waa qaadanaysaa. laakiin haday wax dhul ku jira tahay duruuf kasto ama xaalad kasto kugu soo gudboonaato hadaysan xaalad halis oo adag ahayn dhulku uma iibinaysid. lacaga ameelo uga baabahata ama dadkaaga baahdeen boos meel kuugu yaalo u gadimaysid. muhiimadda marka waa in qofku markaas waxa uu hayo oo Ilaahay gacantiisa uu soo galiyo hadii uu u gooyaan wax fiican wax markaad dhisanayso tayada ugu fiican ama shayga ugu quality-ga fiican hadaadan dhisan karinin u kaadi. shilimaadka aad rabtay inaad ku dhisato gurigan sanadkan haduu kuu shaqeyn waaye ee kugu yaraadeen dhul gasho sanad kadib dhulkii waa kuu kordhaya. dhulka qiimihiisa kuu kordhaya ama 2 sano kadib lacagtaada dhulka kala soo baxbacdeena nooca rabto ama naqshada rabto gurigaaga u dhiso. waa aniga fikradda aan u arkay inay xal tahay meesha qofka uu dhisan lahaa guri bilooyin kadibna uu dumi lahaa uu soo hadhoodii garan weyn lahaa meel laga haysto. cilad marmarka qaar guryaha duma amaba sida qaldan loo dhiso cilad ku timaado injineerka way noqotaa xaqiisa ka timaado cilad ka timaado gurigan oo la ooteeyo aan loo hagar bixinina way ku timaada. dhan walba laakiin qofku waa inuu ka fakaro fal markuu sameynayo marka horena Ilaahay uu isku xiro. tilaabo kasto qaadaysid Ilaahay isku xiro. waxa ka baxaya waa qarash iyo waqti. waana labada shay ugu muhiimsan marka hada adduunka la joogo qofku waxyaabaha uu wax ku qiimeeyo. waqtigaagana waa muhiim jeebkaaga waxa ku jirana waa muhiim. intaba lagama maarmo. maadaama saas tahay waxa muhiim ah inaad qaadato ruqsada lagu siiyay ee ah istaqiru bi umuri dunyakum. umurihiina adduunka oo dhan ka istiqaareeya. falaha sameynin biduuni istiqaare. hadii niyadaada 100% shaygan uu ku noqdana tawakkal cala Allah. Ilaahay tala saaro. guryaha dhismahooda sida hadda aan idin sheegay waxay ku kala duwan yihiin tayada. 65 kun guryo lagu dhisay arkaysa oo filo leh ah. guri waxa arkaysa 50 kun lagu dhisay oo filo ah. mid waxa arkay 55 kun lagu dhisay ee filla ah
mid waxaa arkaysaa lagu dhisay 40,000 waana filo caadiya boos dhammaystiran. mid lagu dhisay 35,000 waxay ku kala duwan yihiin alaabta lagu dhisay, safiitada la saaray, waxyaabaha la geliyay, waxa tiirarka looga dhigay, waxaasay ku kala duwan yihiin iyo weliba albaabada guriga ku rakiban. qofkaan markuu qarashkiisu awoodo inuu waxaan oo dhan sameeyana waa kaas, hadduusan awoodinna tabartiisa oo loo qaado lacagta u yaraanaysaa. 3 nuuc ay noqonayaan. qayb qofka injineerka ah ee guriga dhisayo horta xaq uma laha inuu ku dhaho aniga fikirkeyga ku soco, laakiin wuxuu xaq u leeyahay inta qodob kuu soo bandhigo kaa rabto inaad qaadato. mid waxa weeyaan qofku inuu dhaho furaha aan kugula xisaabtamaya, furahan inaad igu soo wareejiso 2 bilood kadib ama bil iyo bar kadib gurigeygoo dhammaystiran furihiisa inaad igu soo wareejiso oo heshiisaas lagu kala qaato. iyo inuu ku yiraahdo shaqsiga guriga loo dhisaayo aniga shay walba ee aad gurigeyga ku dhisayso aniga kor istaagaya, baqaarka anaa kasoo iibsanaya, adiga waxa igala heshiisaa lacagta adiga ka injineer ahaan dhididkaaga ah iyo dadka shaqeynaya ee fundiyaasha ee guriga dhisaya dhididkooda, labadaas igala heshiiy. labadana qofku uu kula heshiiyo. amaba uu qofkaan dhaho aniga keensanaya dadka dhisaayo, oo dadka guriga dhisaayo aniga keensanayo, jeebkaaga ka injineer ahaan leh adiga wixii aad jeebkaaga gashan lahayd igala hadal, alaabtan anaa keensanayo, dadka dhisaayo fundiyaashaan anaa keensanayo. qofka hadduu saas dhahan waxaan heshiis warqadaa lagu kala qoranaa, wax kastoo cilado gurigaas ku imaada ninkaa shaqo kuma lah. asagu naqshadii iyo qaabka loo dhisi lahaayo bixiyey, hadduu guriga qaloocmo, hadduu si wax ka noqdaan ninkan asagaa wixiisi keensaday eede asagaa ku laabanay. 3daas baab way jirtaa. dhulka cabirkiisana guriga quruxda guriga ka qayb qaata, oo bimacnaa guriga markuu cabirkiisa weyn yahay wuu qurux badnaanaya, hadduu cabirkiisu yar yahay qolal badanna haliga dhisay aad tiraadidne wuu fool xumaanaya. inta badan anaga waxaa isticmaalnaa 5 qol iyo 4 qol, gurigana waa hal boos ee 20, 15 intooda badan saas waay, qaarna way ka yaryar yihiin. marka ka waran guriga cabirkiisa intaas uu yahay laga dhisa 5 qol, waa dareemi kartaa waxa weeyaan xoogaa waxaa ka arkaysaa guriga inuu cariiri noqdo amaba uusan guri macnaha qofku uu ku nafisi karo uusan noqonin. qolalka yaryaraadaan, jikadii yaraato, musqushii yaraato, nooc min ciriiri ah. waxaan ugu talagalay muuqaalkan horta inaan idinku tusiyo gurigan waa guri dhisan, weliba alaabtiisina ay taalo. iridda markaa kasoo gasho banaankiisa waa kana, waa dhaxdhis. mid hore aan hore idinkugu soo gudbiyey baa jira, laakiin shaqo iskuma laha. gurigan waa dhaxdhis, alaabta taalo, alaabahana waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga faaloodo. bimujarad intaan ku ogahay waxaa laga yaabaa inuu lacagta aniga aan sheegayo ay ka bataan ama ay ka yaraadaan, laakiin qiimeyn guud weeyaan. alaabaha horta qofka markuu rabo in qol jiif ah oo master room ah ee jiifka caadiga ah la dhigo, iyo qol caruur, 2 qol oo caruur in loo diyaariyo, rabo inuu maacuun soo dhigto, rabo inuu farinjeer iyo soo dhigto, qasaalad iyo wax walbo oo guri dhammaystiran u helo, qarashaadka uu ku xisaabtami karo baan idiin dul marayaa. fadhiyada way kala duwan yihiin, waxaa kala duwan sidoo kaleeto kuukarada, kuukarba nooc waa, farinjeerada way kala duwan yihiin, way kala qiimo duwan yihiin, laakiin wax walba waxaan kasoo qaadayaa qiimaha meel dhaxaadka ah. مثلا qolka caruurta oo kaleeto, 2 qol ee caruurta, sariiraha macal farsamadooda, qofka waxaa uga bixi karo wareega madaxyada la sameeyo, madaxa wareegiisa iyo madaxa iyo koobadiinka yar waxaa ku baxo lacag dhan calaa madax waay, waxaa ku baxo lacag dhan $40. calaa madax $40 uga xisaabtamay, sariirta wareegeedii madaxa bisi lagugu sameeyo. waxaa kuu soo baaqi noqonaya sidoo kaleeto jiifkii iyo maacuuntii iyo waxaasoo dhan. adiga qofku hadduu $3,000 yiraahdo guri dhan baan ku qalabaysanayaa, wuu ku qalabaysan karaa guri qurux badan ee wax walba ay u dhammaystiran yihiin, waxna aysan ka maqnayn. 2,000 wuu ku waxaysan karaa, wuxuu kaloo ku waxaysan karaa 1,500 hadduu wax walba ka dhiga beeska ugu hooseeyo.
waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.